Prime Minister waa u mahad celinayaa waana ku hambalyeynaya fursadda markii ugu horeysay dadka uu siiyay inuu soo fadhiisto waa arin loo baahnaa space-ka inta wax xukuntay inta la xukumo farqiga u dhaxay inuu soo gaabto waa loo baahnaa marka Prime Minister waxaan leeyahay ku hambalyeynaya midaan iyo kuwii ka horeeyay oo bariyaan suubaday dhaqan cusub bilowdo way hore u sii wadaan ku leenahay saddex su'aalood oo aad u kooban aan qabaa aniga mid ugu horeysa waxay tahay طبعا مشكلتها الدولة أمة دجال سكية كسب بحد قبضة دمان قبنا حوله إنه مفضوضة مركا أمة نقونيتها مصر برايم مينستر الدولة لماذا وحى أصله accountability مسؤولية إن قفك حلك اللودي بي مسؤولية اللودي بمستوى دونتها وحلقة ويديو دلكن أمورها أمنية وحكى دعي وحيابات واوين وزير دولة دكتورسون أو مهمة أي هالجواب لوجود له هالصباح xildhibaano ayaa hotelkii iyo hoygii ay deganaayeen inta loogu tagay lagu laayay arday muxuu ah dawladdu isku keentay oo waxbarasho ay u qaadaysa ayaa maalintii ugu dambeysay 100 ku dhawaada ayaa la dilay intaas oo dhan anagu ma aanan arkin dabcan qaar xukuumadda way ka horeeyeen qaarna shilalkaas iyo kuwa kale badan qaarna intii xukuumadda jirtay ay wali ma aanan arkin qof mas'uuliyadaas qaaday oo mas'uuliyadii amni ee dadkaas ka saareed intuu ka soo bixi waaye ama xil looga qaaday ama su'aal lagu weydiiyay oo accountable u noqday xilkiisa uu gudan waaye adduunyada qarniga 20 maanta waxaan maraynaa natural disaster inta dhaco nin in la yiraahdo kama diyaar garoobin oo xilki looga qaado 100 qofood oo Soomaaliya dad ku dhow inay inta dhimato ee qofna aan waxba laga weydiinin oo hawsha caadi iska ahaato su'aashaas waxa rabaa xukuumadda maxaa uga tala adigoo aad u mahadsan qorshaha ammaanka marka laga hadlayo Soomaaliya xilliyeedii ugu dambeeyay heerkii ugu xumaa ee ammaan ay Soomaaliya gaartay walow bilooyinka ugu dambeysay horumar fiican laga gaaray saan la socono ururka Al-Shabaab oo inta badan dawladda federaalka ee Soomaaliya ay dagaal weyn ka dhaxayaan waxaan la soconaa inay weerar ku soo qaadeen maxkamadda sare xaruntoodii oo weerar ku qaadeen xaruntii jamciyadda Qurumaha ku dhaxaysay ku lahayd magaalada Muqdisho sidaas oo kale waxay weerar ku qaadeen xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya oo meesha ay ku jirtay adiga aad joogtay ee 100 mitir soo jirsadeen waxaan ognahay adduunka horumaray dawladaha caalamka ka jira markii koox ammaanka mas'uuliyadeeda haysatay falal noocaas oo kale ay dhacaan dawladdu tallaabooyin ay qaadi jirtay dadka xelalkoodii way jireen ama ayaga damiirkooda intuu hago ay xilka iska casili jireen dadkii falkaas mas'uuliyadeedii ammaanha lahaa ka soo bilaw wasaaradii shaqada ku lahayd talisyadii ciidamada ee dawladda federaalka u xil saarnaa xilalkii hayaan sidee damiirka shacbiga Soomaaliyeed dadkaas ammaanadooda ay ku tixgelinayaan oo ugu sugayaan ammaan sugan awil horta anaga duruufaan ku sugannahay iyo dalka nooca dagaalka aad tilmaantay ee Al-Shabaab aan ku jirnay ma aha dambiyada caadiga ah ee adduunyada ka dhaca ama dalka dhaca ma aha Soomaaliyana marka amuraas laga hadlayo waxaa la yiri ul aan lagu cabiro lahayn waa dheeraata ama waa gaabnata Soomaaliya horta yaa lagu cabirayaa marka amuraha amniga iyo la dagaalanka shabaab iyo laga hadlayo ma ayda kaligeeda isolate oo meel taagan mase caalam noocan oo dagaalka noocan ku jira ayaa la cabiraa waan jeclaan lahaa dadka markay ka cabirayaan arrimaha argagixisada iyo la dagaalankeeda Soomaaliya inay Soomaaliya metelka ay ku cabirayaan ay fiiriyaan oo dalalka duruufaha ku jiro kale ay ku cabiraan siday wax uga dhacaan iyo Soomaaliya uga dhacaan ay isbarbar dhigaan den markaas ay dhahaan Soomaaliya waa hooseysa ama waa sareysa ama waa meel dhexe taas waa intaas mid kale isbedeladu waa run waxaan sheegayaa waxay tahay markii dambiyo oo conventional ay dhacaan oo waaweyn marka maxaan ku iraahday ay dunuub kale oo nooc kale ay dhacaan ama amni haadan ama ayaan ahaanina sida tilmaamayso way dhici karaan laakiin hadda anagu diyaar u mihin in shabaab maalin walba meel hadii qarax ka sameeyaan saraakiisha dawladda la wada eriyo wasiirada la eriyo biridaba meel kale hadana qarax inta ka sameeyaan hadana muxuu ah dawladeena stability-geeda iyo jiritaanka muxuu ah howlgallada ciidamada in lagu xiro qaraxyada shabaab ay sameeyaan waa jiraan waana jiri doonaan muddooyinkan dhow ee soo socdo marka in ay khalkhal geliso dawladda iyo horu socodka ciidamada ma ahan isbedeladu laakiin dabcan mar walba in dib u eegis lagu sameeyaa ciidamada iyo leader hogaankooda iyo amniga hogaankiisa way habboon tahay waana ku socotaa dib u eegistaas iyo dib u qiimeyntaas